anigoo ah Nimco Cali Ismaaciil ahna xogayaha dalada dhalinyarada sahan wadani alayeen halkan aan soo fadhiistay caawa inaan kaga hadlo arrimaha baan ee xisbiga xaakimka dalada dalka haya kulmiye oo ku haya bulshada dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga rajada shacabka ee wadani hadii aan ka hadlo falkii foosha xumaa ee xalay toole ka dhacay caasimadda Soomaaliland Hargeysa iyadoo weerar aad u farxan lagu qaaday guriga madaxweynaha mustaqbalka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro waxaan ku leenahay xisbi xaakimka dalada dalka haya kulmiye oo Muuse bixiyo arrinkaas ma aha arrin aad ku kasban karto shacabka sida runtii wax aad looga naxaa ama aad looga qiiqsooda ah in xisbiga talada dalka haya ee kulmiye shaqadiisa ay noqotay dabagalka xisbiga wadani iyadoo halkaas arrimo falxun ka sameeynayo sida runtii xalay toole waa ogeydeen falkii xushmada lahaa ee ka dhacay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyadoo la isku dayay in waxyeello la gaarsiiyo guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro waxaanu leenahay hadaan nahay xisbiga wadani waxaas anaga waxba naga ma dhibayaan waxaan leenahay Muuse Biixi Cabdi oo laandudii aad ciyaartayga ayaa dhacday markii adeeg dhacdayna waxa doontay dadkii sigiska dhacayna sigiskoodii ku qabsato laakiin taas waa mid aan gaadhinin baan ku leeyahay mar dambe ka baad laanduuda inaad sigis dhacda ayaan ku leeyahay halka iyada waxa iyaduna arrin aad looga xumaada ah in xisbiga xaakimka kulmiye iyo madbacada sagal jad ay abaabuleen arrin ka dhacay caasimadda dalka aynu jaarkanahay ee Muqdisho dadkaas oo iyagu dad dhibaataysan ah xansuuq baana ku dhacay oo mudan in loo duceeyo in dad aan magaca gudoomiyaha xisbiga wadani garanaynin oo marna la Cabdilaahi Ciro marna la Ismaaciil Ciro in lacag la siiyay oo leeyahay waxa tiraadaan xisbi xaakim waxaan taageerinaa xisbiga wadani taas waa kugu falxumo waan leeyahay xisbiga kulmiye waanaad ku fashilantay hadii cid Soomaaliya laga taageerana adiga ayaa laga taageeraa oo safiir u dirsaday khayrada burcana kalaha Soomaaliya ha noolaato taas malaha ismaad maqleen baan u maleynaya fiidiyooga duubaag baan ku leeyahay waxa kale oo aan jecelahay in aan ka hadlo barasaabka gobolka Togdheer horta burco maalin cad iyo maalin madow labaduba way soo mareen hadii aan maalintii cad sifeeyo waa maalintii uu soo maray barasaabkii qabyo tire laakiin maalin madow baa xigtayo ramaax baa noo xigay hadaanu nahay dhalinyarta gobolka Togdheer ee taageerta xisbiga wadani waxaan haatan xil ilaa xataa aan kala garan laanahay xisbiga soo dirsaday ramaax mise dawladda soo dirsatay ramaaxa waxaan ku leeyahay adeer waa garab martay tigreetadii madaxweynaha ee ahayd shaqaale dawladeed in aanu ka howlgeli karin ololaha xisbiyada mucaaradka aanu kuna dhexmulmi karin laakiin haatan shacabka gobolka Togdheer waxay ku yaqiinsan yihiin gudoomiye xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer waayo waxaad ku dhexmanaantay siyaasadii waxa aad daraato la ka dhacay Siirooga weyna burcawaadoogeed ee taageerayaasha kulmiye sameynayeen kamaad hadlin taageerayaasha xisbiga wadani rinjigiisa Mariina bilaa sabab ayaa xabsiga jeelka ugu gurtay taasna mid laga afreeyo ma aha hal fariin ayaan ku soo diray ramaaxo waxaana ku leeyahay waxa ku qurux badan in mas'uulka gobolka ahaato balse laakiin aad ka dhex baxdo xisbiyada tartamaya hadii aan arrin kale ka hadlay waxa jirta maanta kulmiye ee ololihii gobolka Togdheer uu ka baxay markii uu arkay khayriyadii oo maran afartii qof yimi waxay ka howlgaleen sidii ay u tartar lahaayeen astaamaha xisbiga kulmiye wadani ee ku yaala jidadka halbowlaha xisbiga wadani calan wadani leeyahay gubtaan ama sticker uu leeyahay jartaan ama gurigiisa shiidaan ama dad aad ka xidhxidhaan waxaan idin sheegay xisbi xaakimka kulmiye in aanu idin noqonayn siyaasad waxaan idin oran lahaa alla kale siyaasad cad waxaan idin sheegay mar labaad yeeg baa sanadkan keentay bal sanadada dambe lafta sigiska baadhayeen idin oran lahaa waxa kale oo aan halkan iyadana jecelahay in aan kaga hadlo arrimadii ka dhacay caasimadda Soomaaliland iyaguna ee sidoo kale xafiis xisbigu leeyahay lagu burburiyay war kulmiye ma waxay noqotay siyaasadaadii in aad markastaba aad ka shaqaysan hagardaamada xisbiga wadani balse laakiin tani anaga wax ay yeelaysaa ma jirto hadaan nahay shacabweynaha reer Soomaaliland ee taageera xisbiga rajada shacabka ee wadani inta kale waxaan ku sheegayaa waxa jirtay khayriyada burco oo kaga qodbadeeyay Muuse Biixi Cabdi burco codkeeda waan hantiyay warbeen ayaad soo sheegtay baan ku leeyahay burco codkeeda ninka hantiyay waa xisbiga rajada shacabka waxa kale sheegaya Muuse Biixi Cabdi adigoo talada dalka haatan gacanta ku haya xisbiga xaakimkiina ah ma aha inaad ololeyso iyadoo ay xiran yihiin dekadii kaliya xisbiga dekadii kaliya tahay Soomaaliland ay waxooga soo degayeen taasina waa kugu ayaan darro waxa kale aan ku sheegaya Muuse Biixi Cabdi hadii aad caadaysatay aflagaadooyinka iyo maxay toolay muusiqiyada iyo hadal haynta xisbiga wadani taa waxba lagu yeelimay sida ayaan ku leeyahay hal fariin oo ku soo noqon waxaan ku leeyahay waran kugu soo noqon doona lama rideeyo sababtoo ah qulubta shacabka lagu ma hantiyo ay
afleegaado iyo xagasho midna waxaan leeyahay halkan fariin isaga nooga diraya gudoomiyaha xisbiga rajada shacabka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirro waxaan ku leeyahay gobolka Togdheer waxa uu ku leeyahay maadaama uu yahay gobolada guusha laga hantiyo waxaan ku tiigaalay ma jirto balse laakiin maadaama madaxweynaha mustaqbalka dhow waxa kaliya ku warsan waa dhaartii taas ay gobolka Togdheer kula diyaar yahay